kulantii waxaana wanaagsan daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan meel kastoo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada afmeer t v oo aalaba xilligan oo kale aad uga barateen xogihii ugu dambeeyey ee naga soo gaadha geeska africa inaan idinsoo gudbino caawa waxaan filayaa studiohanagii meel ka bedelan ayaan joognaa marka sawanaad la socotaan safara iska jirjira soo dhawaada dhammaantiin meel kastoo joogtaan waxaan u gelaynaa warar ku saabsan xaaladda etoobiya oo cerka isku shareertay ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa kulan isugu yeedhay deg deg ah golaha federationka ama aqalka sare ee etoobiya maalinta sabtiga soo dhawaada dhammaantiin xiisad cusub doorashadii tigraaga ayaa iyadana sida ay ku adkaysanayaan dhacaysa 9 sebtembar oo toddobaadka nagu soo foolle kulankan deg deg ah ee ra-iisul wasaare abiy axmed isugu yeedhay golaha federationka etoobiya wuxuu daaran yahay ayaan laba qodob ayaan insha allah idinla wadaagaynaa sidoo kale qodob waxaa jira arrin aan hore uga hadli jiray oo halis ku ah dalkeena deegaameyn cusub oo etoobiya ay doonaysa inay ka bilowdo agaga shidaalka dalkeena oo ay si wararka nagu soo gaarayaan in 100,000 oo guri aagiba laga dhiso lana soo dejiyo dad etoobiyana qodobadaas insha allah iyo waxaan gudagelaynaa wararkii oromiya iyo sidoo kale koonfurta etoobiya kacdoonka ka socda doorashada tigraaga qodobo badan ayaa ku qaadaa dhigaynaa fadlan barnaamijka sii gaadhsiiya bulshada intaa ka horeysa waad artaan afmeer t v loogadaa saaran baad arkaysaa intay qaataan qolada youtube-ka inay mid kale kor saaraan xaggeen joognaa anagu waan u nasteexaynaynaa anagu qof soomaaliya channelkiisa kama xidhayno laakiin hadduu saaxiib yahay iyo hadduu qof kale yahayba loogada afmeer t v looga kale ninkii dul saara channelkiisu wuu xidhan yahay ogaada fadlan asxaabteenana qofkii arka ee youtube-ka ku arka afmeer t v oo loogadiisa looga kale la dul saaray fadlan linkiga noo soo tuura channel ku yahay noo soo dira haddii ilaha yidhaah lama saari karo kuwa asxaabta anaha iyo kuwa kaleba waxaan u ogol lahay qofka loogada afmeer t v qaadanaya waan u ogol lahay laakiin qof bedelaya ma ogolin hadda ogaada qofkii qaata isagay u taallaa waa yahay qodobadeena gudagelaynaa insha allah soo dhawaada dhammaantiin caawa wararku aad bay maaragtay xasaasi u yihiin markaa soo dhawaada waan islaamaya dhammaantiin soo dhawaada khiyaar sharafan waan islaamaya dhammaantiin soo dhawaada waayahay daawadayaal soo dhawaada meel kastoo joogtaan khiyaarta sharafta leh daawadayaasheena aad iyo aad baan maaragtay ugu mahad celinaynaa sida tooska barnaamijyadeena ula socda annaguna waxaan ku dadaalaynaa xogaha xaqiiqada ah ee dhabta ee jira inaan dadkeena la wadaagno annagu waxaan halka u fadhinaa hal riijina ama hal gobol oo soomaaliyada ma aha guud ahaan arrimaha ka hadlayna waa arrimo soomaaliya oo dhan quseeyo wey qaar baa waxay u arkaan inaan gobolka ogaden ka hadlayna keliya laakiin ma aha barnaamijkan caawa halkan aan kusoo bandhigayno soomaaliya oo dhan buu quseeyaa markaa soo dhawaada waxaad la socotaan etoobiya dowladda ka jirta hadda xilligan uu hogaaminayo ra-iisul wasaarahan maaragtay abiy axmed dad baa waxay ku odhanayaan muxuu ina yeelay iyo maaragtay waa nabadgelyaan helay iyo waxaa ma jirto marka xaqiiqada dhabta aynu ka hadlaynaa caawa soo dhawaada idin ahaantiin waad la socotaan etoobiya kacdoon isdiidan baa ka socda marka inta etoobiya ku hoos jirta 4 qolaa ugu maaragtay miisaan culus oo ay etoobiya ka cabsanaysaa qolo waa maaragtay soomaalida kow oromiya t b l oo tigraaga iyagana koonfurta etoobiyana cabsi baa ka timid afartaa region afartaaba waxa weeyaan qoomiyado aan etoobiyaan ahayn marka laga reebo tigraaga
soomaalida oromada iyo koonfurta etoobiya dadka degan intaasba waxay ahayn dad dulman qolo waliba hadda waxay u taagan tahay xilligan sidii ay etoobiya wixii la odhan jiray xuquuqdeeda iyo xaqeeda uga heli lahayd marka waxaan gudagelaynaa insha allah qodobo xasaasiya ra-isul wasaaraha etoobiya ayaa iclaamiyey kulan deg dega ayuu isugu yeedhay golaha aqalka sare ee etoobiya ama waxaa la yidhaha house of federationka etoobiya sideedaba labadeeda gole waa magacuyaal aqalka baarlamaanka etoobiya la yidhaha keena muqdisho soomaalidu dadka dhaliisha badan loo haya la yidhaha mooshin iyo waxbay wadaan waxbay hoos ka qaataan kuwaasaa baarlamaan dimuqraadi ah kuwaasaa ka cadaaladsan kuwan etoobiya kolka lasoo xulayana waa la iska soo qabtaa oromada inta ha laga keeno maxaana inta ha laga keeno marka waa saas marka taliska markaa ka taliya etoobiya wax alla wuxuu rabo iyaguba un yes maarata gacanta taagi golaha house of federationkana waxa weeye maamulada maarata 9 maamul ee etoobiya hadda hoostaga madaxdooda iyo maarata hogaano iyo waxaasaa la yidhaha house of federationka marka xilligana nin soomaaliyaba guddoomiye u ah madaxweynihii hore ee deegaanka soomaalida ama dalka soomaaliyeed ee etoobiya gumaysto aadan faarax haddaba kulan deg dega ayaa la isugu yeedhay jimcaha atig inay tahay maalinka sabtiga soo socota ama 5 bisha 4 iyo 5 labada midkood buu noqonayaa berri bishu waa 3 kulankaas isaga ah wuxuu ku saabsan yahay doorashada ka dhacaysa gobolka Tigreega marka laba arrimood baa naloo sheegay oo naloo xaqiijiyay dad xogaala markaan la xiriirnay anoo marka halka soo fadhiisanayno xog aan rasmi ahayn idin lama imanayno waxaana loo xaqiijiyey laba qodob bay arrintan iyo daaran tahay kulankan deg deg ah ee aqalka sare ee baarlamaanka etoobiya waxa weeyaan in dagaal lagu qaado Tigreega oo doorashadooda dagaal lagu joojiyo 9 September waa toddobaadka dambe dhici iyo in lacagta laga gooyo budgetka laga jaro labadaas qodob baa naloo sheegay mid unbay ku qotontaa kulanka deg dega ee maarata etoobiya yeelanayso marka sabtiga nagu soo socotay iyo maalmaha soo socda etoobiya weji kale yeelanaysaa etoobiyadaad maqlayseen maalmaha soo socda arrinteedu way isbedelaysaa marka taas waa inaad ogaataan xaalku marka mar walba wuu sii etoobiya wuu sii murgayaa gobol etoobiya ka mid oo Tigreeg la yidhaha lama tegi karo oo etoobiya taliska Addis Ababa ma tegi karaan even doorashadeeda kama hadli karaan juu kama dhihi karaan laakiin innaga iyo dadka kale waa maaragtay waa la haystaa oo waxaynu nahay dad maxamiyada oo ku hoos jira maaragtay gumaysiga marka kulankaasaa dhici doona labada qodob ayaana miiska saaran sideena loo xaqiijiyey in bal arrin ciidan lagu dayo doorashada Tigreega si lagu joojin lahaa maaragtay la galo sidoo kale iyo in maaragtay dhaqaalaha laga gooyo oo la godoomiyo xagga dhaqaalaha marka waa disparate aad iyo aad bay maaragtay u rafanayaan bal sidii ay doorashadan ku joojin lahaayeen ee TPLF ay qabanayso ayay maaragtay iyay Addis Ababa ku wareersan tahay arrinta kale ee jirta waxay tahay tan waan usoo noqonayaa goday iyo dhulka shidaalka iyo xaaladda iyadana xogaha soo baxaya horey waan uga hadalnay muddo bil laga joogaa ka hadalnay haddana waan ku celinaynaa xogo kala yimid kacdoonkii ka socday koonfurta etoobiya gobolada maaragtay isku yidhaha dhabuubka waxaad moodaa etoobiya laf dhuun gashaybu ku noqday xaaladda oromada etoobiya la daala dhacaysa iyo Tigreega waxaad moodaa marka qolooyin cusub oo freesha inay iyaguna ay bilowdeen ayaad moodaa marka qolo walayta la yidhaa oo iska hurdi jirtay halkaasay taagan yihiin sidaamo gaar bay u baxday qolo kaafaa la yidhaa gaar bay u baxday kuwooyin kale oo hadda magacyo kale oona hayno fara badanna waa 250 gees baa loo wada taagan yahay qolo kastana waxay doonaysaa sidii etoobiya hadday kala dhaqaaqdana ay dowladdu noqon lahayd oo iyadoo abaabulan etoobiya ay u kala tegi lahayd haddii ay etoobiya sii waswislaysana
ay wax uga noqon lahayd ay uga heli lahayd ismaamul u gaar ah oo culturekeedii dhaqankeedii iyo nidaamkeedii ay ku ilaashato iyo maarata xuquuqda ay leedahay. horta dadkii Ethiopia la isku oran jiray ee hurday qolo waliba gaarkeeda u baraarugtay oo xilligan ma jirto cid iska hurda ma jirto. qolo kasta xilligan waxa weeyaan waxay diyaar u tahay inay ka cadgoosato gumaysiga maartay inta badan soo gumaysanay. arrintaasina way jirtaa dhinaca kale maartay qolada la yiraahdo walayta waad ogtiin kacdoon bay sameeyeen 2 toddobaad 3 toddobaad oo horta joogta abay wadeen. waxaa laga xidhxidhay saad la socotaan 28 qof oo indheergaradkii reer walayta ah. markii joojin waayeen oo arrinta oromada oo kale ay bilaabeen ya marka xukuumadda Addis Ababa waxaa la yidhi war 28 qof ee walayta ka xidhan inaga sii daaya. waa la soo daayay. hadda waa hogaamiyaashoodii markaa gobolladooda xukumay iyo maamulkooda. maamulka yacni koonfureed ka tirsan yihiin dadkii ugu jiray ee ugu muhiimsanaa. markii loo soo daayay shaqooyinkoodii bay ku noqdeen. daraad baa ciidamada Ethiopiana tagay walayta gobolladaas niman ay wataan oo maartay kuwii la odhan jiray dabaqoodhiga oo kale ah yaaba la yidhi kuwana walayta matalaya. laakiin 28kii waxay ahaayeen Ethiopia diid meesha waa laga saaray. sideedaba marka ciidamada Ethiopia waxaa ugu badan koonfurta dadka koonfureed. walayta marka waa lambarada ugu badan ee maartay dadka marka koonfurta Ethiopia. ciidamadooda marka ciidamo badan oo ku jiray waxaa la sheegay inay duurka galeen oo goosteen. waa mashaakilka kale ee haysta maartay Ethiopia way xilligan. marka koonfurta Ethiopia horta xaaladaas ka taagan. waxaa jirta koonfurta Ethiopia oo daris xaga ka sii ah waxaad maartay ama maartay dhinaca amxaarada xuduud la leh qolada la yiraahdo Benishangul. dhulkan webiga hadda la xidhayo ee isku haystaan Masar iyo Ethiopia dad baa iska laan Ethiopian ahayn laakiin qolihii la qabsaday ah. Benishangul dadka la yiraahdo waa dad kuusha waa dad aan u ekayn ba maartay Ethiopianka laakiin la qabsaday oo dhulka barwaaqada ah ee webiga maraya cagaarka degan. laakiin waxay leeyihiin ismaamul gaar ah oo 9 maamul ee Ethiopia hoostaga ka mid ah. waxaana loo xaqiijiyay ama Benishangul bas sidaa ku naqinay xilligii halganka adag maartay campaignkiisu u socday inay ahaayeen dad doonaya inay gooni isu taagaan Benishangul oo ayna Ethiopia ayna ku qanacsanayn. halkaana amxaara iyo waxa isku dhuftay oo ay xurguf weyn ka dhaxaysaa oo xataa khasaaro badan u jira iyo Benishangul. marka amxaara waa ismaamul Benishangul waa ismaamul laakiin maadaama ood wadaagay yihiin halkaasna aad bay waxaa la yiri xaaladu u adag tahay. marka dalkii Ethiopia loo jiro xaalkiisu waa kaas. waxaan u soo galeynaa teena ayaan galeynaa oromada iyo xaaladaha kale Ethiopia ka jira dib baan u dhigaynaa. waxaan jeclahay barnaamijka inaad gaarsiisaan bulshada oo share gareysaan. waxaad la socotaan dhulkeenu shidaal buu leeyahay khayraad badanna wuu leeyahay oo kala duwan buu leeyahay. 4 webi baan barta. waa dhul hodana oo buruhu ku badan yihiin dhul beereedkuna ku badan yahay khayraadkii iyo shidaalkiisuna ayna cadad lahayn. waxaa haysata waddankeena Ethiopia haysata. Ethiopiana waxba inooma ogola. hadda qaar baad arkaysaa Abiy Ahmed baa nabadna siiyey. xaguu kaasiya nabad uu ku seexinaya waa ninka ugu haddii laga soo adkaado oromada iyo haddii laga soo adkaado qoomiyadaha markaasaynu ogaanaynaa kuwa hadda Abiy Ahmed iyo waxa iyo maartay hadallada jilicsan ku hadlaya. waa ninka kaliya ee hadda damaciisu yahay in ilaa dhulkeena la soo dejiyo dad inaga badan oo Ethiopiana ah khayraadka ayna Ethiopia ayna maar dheefsanayn. mayna weli soo arag waxaan oo kale. xagee marka nin damaciisu yahay inuu waddankeena keeno Ethiopian fara badan oo dadkeena populationkeena ka badan kadib markaa ay macnaha ay hawaysanayaan shidaalkeena. laakiin inta waddankeenu dal Soomaaliyeed yahay dadkiisuna ayna ogolayn ciidan Ethiopia waddankeena jooga inay shidaal ayna dhoofin kareen waa la og yahay. marka xogahan la soo gaaray oo waliba dad Oromo ay noo soo gudbiyeen oo maartay aqoonyahana oo activist ah
siraha aqalka madaxtooyada Ethiopia laga helay waxaa kamid ah in dhulka shidaalka aag walba oo shidaalka ah oo ogtiin maartay jeexdin iyo maartay elal iyo dhulka shidaalka oo dhan aag walba 100,000 oo guri oo dabaqyo ah laga dhiso kadibna 100,000 oo Ethiopian ah halka la dajiyo caawa meel ku qora waxaa laga yaabaa mar kale inaad isweydiisaan yaa laga yaabaa marka riyadan waa haddii Oromo la jabiyo iyo haddii laga soo adkaado TPLF haddii markaa mashaakilka koonfurta Ethiopia iyo Tigraaga iyo Oromo ka haysta uu Abiy Ahmed ku soo guuleysto waxa weeye innaga ayaa miiska saaran innaga kaliya ma saaran Soomaali oo dhan baa saaran marka miiska laakiin inagu front line-kii aagii horeynu nahay meeshii dabku ka bilaabanayay sidaba geeska Afrika hadda mashaakil ka jira waa dhulka Ethiopia ay gumaysato marka haddii dhulkaas xal loo helo mashaakilka waxa la yiraahdaa Horn of Africa wadamada la yiraahdo ama bariga Afrika ama geeska Afrika oo dhan xal baa loo helayaa marka wali mashaakilkiina uu taagan yahay marka su'aasha isweydiinta mudan ma ku baraarugsannahay dad u diyaarsanna ma nahay dhulkooda harista iyo waxa ku soo socda iyo mataqaanaa hagardaamada la inagu soo wado iyo dhulboobka iyo sida la rabo in dhulka la inooga tirtiro dad og ma nahay mise waxaan kaliya leenahay hebel iyo hebel baa ku maqanahay qaar baa waxaad arkaysaa waxay baraha bulshada la dhex wareegayaan aad la yaabaysaa war kuwa maartay kuwa aan shabadan balay jiray oo barafkan la lugeyn jiro hadda waxaan xaafado ku soo laabtay dad badan baa tareenka ka dhacay dadkii loo baahnaa bulshada inay baraarujiyaan horseed u noqdaan yaa maanta heeryadooda dib u cunaya oo waxaad ka filaynin baad ku arkaysaa nin difaacaya nin ma taqaana qadiyada ku taageerayay laakiin ayna war kitaabka aad martay iyo hawlihii away taas maartay waa dadka qaar baan u jeedinaynaa barnaamijka mar gaar ah ka hadli doona haddii la yidhaa xogaha aan helay waxaa kamid a dhulkeena aagaga shidaalka weliba goday waa la ii magacaabay caasimadda goday waa la ii magacaabay goobaha shidaalkana way ku jiraan deegaamayn in taliska Addis Ababa uu dabacsan yahay weli halistan oo kale waxay dhacday waqtigii Mengistu uu joogay xamle 78 diinbay ahayd mise intii ka dambeysay waa kii amxaaro badan la dejiyay goday miraagi goday mashruuci waa kii la sameeyay marka wixii oo dhan way shaqeyn waayeen oo maartay waa tii jiqda noqotay isbedelkii markuu dhacay ay ka qaxeen meesha bil ka hor barnaamijkeena waxaa ku jirtay inay ka codsadeen Abiy Ahmed amxaaradii in lagu celiyo goday dhulkii ay maartay waa kii marka waa goday tagi lahaa ee keeni lahaa ganacsato dad maalgashadayaal oo Ethiopian barnaamijkii waa kii marka mashaakilkan ku furan iyo waxan waa kii u baaqday ee maartay weli laakiin tagitaankiisii meeshu ku jira waa inaad ogaataan xogahan marka dad kale ay noo soo gudbinayaan oo Soomaali ahayn oo kale warbiyaad ogtihiin qorshahayda ku soo socda warma u diyaarsan tihiin oo dadka hortay kara ma tihiin dad aan Soomaali ahayn baa inoo soo gudbinaya oo dadkan isragalka ku jira Ethiopia raba inay ka hoos baxaan qayb ka mid ah kii Soomaaliga ahana waxaa laga yaabaa barnaamijka markuu daawado inuu kula yaabo laakiin uu ku mashquulsan yahay arrin loo kala waxa xaggan tiri hebel baa waa gudoomiyaha hadda kana ah madaxweynaha sida yidhi intaas inuu hankiisuba intaa yahay laakiin halista waddankan weligii wuxuu ku jira halis haddana waa xilligu ugu halis badan yahay maxaa yeelay khayraad buu leeyahay oo adduunka oo dhan baa isku haysta Ethiopia kaliya inaguma haysata hadda Ethiopia qayb adduunyada dhulkeena inagu haysata China kala socotaa marka hore kaligeed baa inagu haysatay haddana quwado kala ku tartamaya reer galbeed iyo China Ethiopia iyo China is wata iyo galbeed marka inaga halis badan oo waddankeena uu ku jiraa iyo dadkeena haddana markaad dhinac aragto waxaa is leedahay quwadahan ku loolamaya qaar baa
laga yaabaa inay dani noogu jirto. waxaa yeelay china ethiopia unbuu yaqaanaa isagu, dadka waddanka iskale ma yaqaan. laakiin nimankii gumaystay waddankan iyo dalalka kale badanaa dadka localka ah ee dhulka iskale bay siiyaan priority-ga. hadda waxaad arkaysaa waddamada carabta maanta kuwa 200 kun xataa populationkoodu aan gaadhayn kuwait iyo waxaad arkaysaa baxrayn iyo waddamadan qatar iyo dalal yar yar ba waxay ku leeyihiin dowladaha maraykanka iyo waxaan nahay xulafo, shidaalkooda way ka qaadan karaan, kama qaadanayaan, laakiin heshiis bay la gelayaan. marka inagu waxaan u baahannahay waddamo aynu is xulafaysano, diil aynu galladee wax walba compromise baa jira adduunka. warnimada nimankan afrikaankeed noo dhiibteen na dhaafiya, bal shidaalkana waynu ka wada hadlaynaa, waxbaanu compromise baa jira shirkadahooda maartay. marka arrimahan runtii waddanka halis buu ku jiraa, haddaad og tihiin iyo haddii kaleba. qorshaha dowladdan etoobiya hadda ka jirta miiska u saaran waa qorshihii abasiiniya wey. ogaada marka, haddii aydan baraarugsanayn, haddii aydan dadkiina midaynin, halistan maanta taagan aada iyo aad bay u weyn tahay. kow, arrinka dhana xuquuqda aadanaha human rightska baa inagu yaama dadkeena haysata. bayaxow iyo maalmo dhaweed meelaha aaga shidaal ka dhowaad arkaysan dadka si loo gelayay. waad aragtaan marka in la leeyahay yaa maal gashanaya goday, yaa degaya halkaas, oo etoobiya ninkeedii shilin haystay oo dhan laleeyahay dhul baan ku siinaynaa ina keen, dhul hoodana oo barwaaqo oo meeshanaa lagu geyn. oromadu way diideen, waxay dhahaan anagu dhulkaas soomaaliyeed uma soconno, dhul khayraad leh oo dahab baan haysanaa bay dhaheen, dhul beereedkana annagaaba ka fiican. marka oromo iyadu waxay u qaadatay in haddii ganacsatada maalqabeenkeedu ay yimaadaan goday, de way arkeen dad soomaali iyo oromo inay isku dhacaan lama rabo, iyaguna ma rabaan, inaguna dad aan darisnahay weeye, ma rabno. marka laakiin etoobiya iyadu labadaa qola siay isugu dhufan lahayd mar walba way rabtaa, si ay isugu keen mashquuliso, kadibna ay dhulkii ay usoo dejisato dadkeedii maarata etoobiyaanka ahaa. marka arrimahaas oo dhan baa socda. waxaa loo baahan yahay dadku inay marka baraarugsan yihiin. barnaamij gaaraan ka samayn doonaa haddii ilaahay idmo, halista dhulkeenna iyo boobka khayraadka ku socda iyo sida deegaamaynta ay etoobiya ay u damacsantahay inay ka samayso. ilaahu colkanaga col bixiba yaa soomaalida hore maamaha baa jirta. marka qorshihii ay noo degeen horoma seef haysata, sidaama haysata, waxaa haysataa waleyta, qolyihii kale so-on. marka inagu waxay nahay mar walba waynu hadda isha ku haynaa dhinaca ay u dhacdo etoobiya. ogaada hadda maalmahan soo socda haddii la yidhaha sabtiga laga bilaabana siyaasadda etoobiya inay isbedesho ayaa loo badinayaa. maxaa yeelay ninkii abiyaha meel bay ka maraysaa, meel hurdo ma jirto. tigraygi baa doorashadii qabanaya. tigraygi markay doorashadii qabanayaan, markaas kulankan hadda isugu yeedhay aqalka federationka etoobiya, golaha aqalka sare, haddii uu iclaamiyo inuu guluf ku qaadayo tigrayga, uu yidhaha xoog baan ku gelayaa, iyadana waa dhammaadka etoobiya. hadduu yidhaha dhaqaalihii baan ka joojiyay tigrayga waan cunaqabateeyeena, iyagaa soo dooranaya, oo waa bisad qol lagu xidhay bisad qol lagu xidhay. marka ood intaad buri soo qaadatay aad albaabka u istaagtay, mar haddaad ku dhufato mar damba kuma dhufanaysid, aday ku fananaysaa ku qabsan. marka iyaguna waxay rabaan t b l f in Addis Ababa xukuumadda ka jirtaay ay mar un wuxuu kusoo tuurtuurto maaragtay si ay ku bilaabaan. dan weyn baa inoogu jirta meesha hadday ka bilaabato, dan weyn baa inoogu jirta. wixii baa dhaqso u kala daadanaya ina gumaysanayay, wixii baa dhaqso u kala daadanaya. marka maalmaha soo socda isbeddelkaasaa soo socda. etoobiya mayskay saaran tahay,
lama garanayo xaalkeedu siduu noqonayo. haddii tigraaga laga gooyo lacagta budgetka ay etoobiya ku leeyihiin, sharciyan adduunka xeerka u yaala muxuu noqonayaa? macnaha etoobiya dalkaa kama tirsana weeye. haddii inta qori la qaato iyo kaarayaal la aadana waa intay rabaan. sidaba haddii abiy axmed xataa doorashadooda hadda uu aqbalo uu yidhaha waan taageersanahay, iyagu niman intaa ku qancaya ma ah, kuma qancayaan. marka xaaladda etoobiya ma dhowa, lagumana kala adkaanin, laakiin sagxaddaa la isla fadhiyaa hadda oo maaragtay caalsaaraha waa laga haystaa ninka la yidhaha maaragtay etoobiya taliska Addis Ababa. maxaa yeelay qowmiyadda oromada arrimihii dibadda etoobiya way burburisay, digaday ka dhigeen oromo arrimihii dibadda etoobiya. ilaa waddamada waanu joognaa, waan ka warhaynaa. bal waxaad ii sheegtaan safaarad waddamada reer galbeedka ku taalla oo waddamada waaweyn ee muhimka ah oo etoobiya ay leedahay oo 2 bilood u dambeysay shaqaynaysa. safaaradan calankii baa laga wada bedelay, waa la fuulay, qaar baa la dhex degay, kuwana waa la horteedii baa teendhooyin laga dhistay. adduunka oo dhan baa marka yidhi war see wuxuu jiraan, waa maxay arrintani? maraykanka waad arkaysa minnesota jidadka ugu muhiimsan bay kusoo baxeen 40,000 dad gaadhaya. helikobtero ayaa duubayay mudaharaadkii minnesota ka socday. cnnka fox newska waad ka wada daawanayseen. tension macnaha waxay soo jiiteen, yacni waxay sameeyeen wax aada u adag bay sameeyeen xaqiiqatan. marka la arkay waxay qabsadeen lawyer 500,000 ah oo kuwa dowladuhu qabsadaan bay maraykanka qabsadeen. yacni cadaadis waxay saareen aan innaba caadi ahayn. diblomaasiyiintoodii baa ka shaqayn waayay dalalka reer galbeedka. dhaqaalihii hadda waad la socotaan, 1 bishan waad la socotaan, ama 2 bishaan idhaaho, baanka adduunka $2 billion oo etoobiya la siin lahaa ayaa laga joojiyey. kutumashada xuquuqda aadanaha baa kow ka ah. doorashadii etoobiya ay maaragtay ay baabi'isay iyadana lacagtii marka waa laga xayiray. maraykankana waad ogtihiin isla maaragtay 31 bishii hadda dhamaatay august inay iyaguna lacagtii ka jireen. asal ninka muxuu ahaa waryaa ninka asal magaciisa watow ayar fadhi waayahay. marka arrimuhu wakaas dalka etoobiya loola jira ninka jecel kulle kuwa jecel meesha way ku jiraan oo soomaaliya, kuwa u naxsan oo beerka iyo wadnuhu boodayaan marka la sheego etoobiya burburaysa, kulle meesha way ku jiraan. laakiin aday ku taalla. waayahay arrimuhu marka halkaasay marayaan. arrimihii dibadda etoobiya waxaa kaga guulaystay oromo. arrimihii gudahana hadda yurub oo dhan lacagtii doorashada etoobiya lagu siin lahaa waa la joojiyey. lacagihii kaalmada ahaa waddamo badan baa hakad geliyay. etoobiya maaha marka waddan wax soo saara oo isku filan maaha. xitaa ciidankeeda keliya etoobiya kuma filan hadii la yidhaha mushaar sii oo lacagta laga gooyay. marka arrimihii dibadda oromaa kaga adkaatay waa xaqiiqo wey. halkan magaaladan joogan ka soo qaadayaa oo magaalooyinka adduunka ugu muhiimsana. maraykankii aad aragteen oo dalka adduunka ugu maaragtay super powerka ah baa si babliga u sheegay lacagtii inuu ka joojiyay etoobiya. 29 bishii aan soo dhaafnay august 2020 oo 7 toddobaad ka hor waxay ahayd doorasho in etoobiya ka dhacdo. aaway doorashadii west election xaguu geey, xagee ka baxday, goormaa dib loo dhigay, goormaase dib loogu dhigay lama hayo. baarlamaanka etoobiya sebtembar buu dhacayaa, waqtigii ka dhammaanaya 30 sebtembar. baarlamaan etoobiya la yidhaha ma jirayo, doorasho ma dhicin. waxay august baarlamaan inuu soo baxo, sebtembar 30keedana etoobiya baarlamaan cusub ay lahaato male. nidaamkii iyo dastuurkii wixii etoobiya u yihiin loo dhan waxaa weeye daad kaa qaaday. dowladahan maaragtay horumarayna
meel nidaam ka jiro oo la xisaabtan u ka jiro oo dowlada ka jirta ayay dhaqaala siiyaan sida taas waa taas. arrimaha marka gudaha ee etoobiya, oromo iyo etoobiya midkee ku adkaaday waa qodob taagan isaguna. waxaa la odhan karaa arrimaha gudaha salka dhulkan loogu dhuftay abiy axmed 30kii juun sanadkana ku jiro bishii 6aad markii uu xidhxidhayay madaxda oromada ee ciidamada faraha badan oromada ay usoo direen. waxaan islaa waxaan 7 bay iska dhammaanayaan, 2 bilood baa hadda dhammaatay, wax socdana ma leh. dhulkii waa hirig, dhaqaalihii etoobiya dhulku galay. okay, marka arrimihii gudaha ee maaragtay oromiya iyo etoobiyaba, ciidankii etoobiya ee abiy axmed uu ku xisaabtamayey oromadii wuu caburin kari waayey, khasaaro badan baa dhacay, dhaqaalihii etoobiya burburay, jidadkii bay xidheen. hadda maantay ugu dareed mudaharaadada ka socda, weliba mudaharaadada hadda oromada ka socda gudaha iyo dibaddaba waa haween bay soo daayeen maaragtay haween bay uqunay. marka asaan maqlaya hadda berri raggaa kusoo darsamaya mudaharaadada. arrimihii gudahana way ka dhex taagan tahay, wax socdaay ma jiro. maalgashadayaal dhulka oromada etoobiya maaragtay ka talisa ugu ballaaran ma jiro wax maalgashiya. kuwa maalgashaday horena way ka carareen, wax kala iibsigii iyo isu socodkii ma jiro. kan axmaarku dhalay fiiri ku naqaan adiga xabashi iyada xabashi ahayd nooga bax waaya. marka waa sidaas. hadda waxaan lahayn kuwa laga yaaba inay soomaali yihiin oo halkan ku jira, meelay dooniba ha kasoo jeedaan oo etoobiya qaraabo la ah xabashada nugulsimaad yaa jooga. okay, but who cares? marka xaaladii arrimaha gudaha etoobiyana wataas. oromo kacdoonkeedii way wadataa, culayskii etoobiya iyo ciidamadeeda ku hayeen waa halkaysii, laakiin waxba mayna kala dheefin. waa jugjug meeshaada joog. waxaa kale oo ka jira deegaanada oromada, waxaa xoogeystay nimankii olf la dhihi jiray jabhaddii xoreynta oromiya, dhallinyaradii oromada ee cadaadiska magaalooyinka ka baxsatay. waxaana loo sheegaya caawa meel ay ciidan kala geeyaan bay laayihiin. marka arrintan hadda shirkan ka socda furmaya maaragtay u furmaya aqalka sare etoobiya, qodobkaasaan iloobay. waxaa ka mid ah jabhadda oromada. intayna tigreega aadin horta aynu oromada jabhaddeeda soo afjarro, qodoba baa ku jira. le-anna darhaad waxaan dad badan inay ogyihiin 12 magaalo ay qabsadeen jabhadda oromadu. darhaad 12 magaalo oo dhulka oromada oo qaar muhim yihiin bay la wareegeen. haddana waxaa naloo sheegay magaalooyin fara badan bay joogaan oo ay caadi u degan yihiin. marka aad baan idiin salaamaya dhammaantiin. inta barnaamijka sheergalaysay commentiga ka dhibanaysa waan idin salaamayaa. waxaan ka hadlaynaa waa arrin masiiriya. etoobiya iska cambaarayn waxa weeyaan waa xaqiiqada dhabteeda jirta wey. nin rabaa dhulkan inuu soo dejiyo maaragtay 100,000 dad ka badan oo magaalooyin ka dhisto oo shidaalkeena raba inuu dhoofsado. maxaa ka dhowranaynaa marka? waa inaan xaqiiqada dadkeena u sheegno wey. xaqiiqada waa inaan dadkeena u sheegno, saa waa inaad ogaataan. jabhaddii oromada way xoogeysatay, oromadii oo dhan baa taageertay. waagii hore gobollada oromada o dhan lagama taageersaneen. hadda deegaano cusub bay ku faafaysaa, ciidamadeedii baa kordhay, ma aqaan meelay kaalmo ka helayaan. weliba muuqaalo fara badan baan haynaa, inkastoo de hadda aan ka mashquulsannahay. halkaasay socotaa. oroma dhinacana si nabadgelyo ah oo shacbiyan bay u mudaharaadaysaa, dhinacana ciidan ahaan bay u diyaar garowday. xaaladda dhabta ee jirtayna og tahay. maxaa yeelay go-aan bay ka gaadheen iyagu etoobiya. waxaad moodaa inay naga yaqaanaanba. go-aan bay ka gaadhay oroma etoobiya.
waxay ku leeyihin ma wada noolaan karo. marka waa la qasbayaa hadda haddii oromada dagaalkan lagaga adkaado meel ku qora soomaalidan sheegaya meel kasoo joogto waxaa la moodayaa un dadka hadda gobollada waddanka ay gumaysanayso 12 milyan Ethiopia ay ku hoos jiraan. wallaahi baan inta ama bad ha ahaato ama deris aan nahay afka xabashiga annagaaba diidnay oo xabadsan ka gelinayn, laakiin meelo waxaa jirta hadday tagaan sacabka loo tumayo oo la raacayo. anaga hadda Somali state af Soomaaliga wax lagu bartaa sankaa ka gelinay. laakiin magaalooyin hadda badan oo haddayna dhaafaan xuduudka ama beenaadka gooyaan meelo badan baaba laga raacayaaba shuruud la-aan. halista soo socota marka kuma wajahana keliya jigjiga iyo dhulka ay xukunto. Soomaaliya meel kasuu joogo waa isku mid, xaqiiqo wey ogaada. Ethiopia kacdoomadan ka jira iyo yaa horta Ethiopia kacdoonka ku wada dadkii la gumaysanayay maxay diidan yihiin in la gumaysto. arrintan marka oo aan laf juhdi badan bay gelisay maxaa yeelay dagaalkii keligeed bay ku ahayd. Soomaali bay Ethiopia mataqaana gacanta ku dhigtay, waa la soo qabqabtay oo aan afla siyaasadeedii gudaha Ethiopia u wareejisay. shucuubtii la gumaysanayay bay tiri war ka kaca, xoog baad leedihiin, malaayiin baad tihiin, aad iska hor qaadda gumaysiga. dadkii marka la gumaysanayay oo dhan Ethiopia ku hoos jiray qolo waliba waxay raadinaysaa xuquuqda iyo xorriyadda ka maqan, ama ha tabar yaraato ama ha tabar badnaato. taas inaad ogaataan yaa loo baahan yahay. guud ahaan marka isbeddel baa socda cusub. bishan aynu ku jirrana Ethiopia weji kale yeelan doontaa, meel ku qora caawa. bishan aynu ku jirro ee September maanta 3 soo ma ahayn. xaalado cusub ay Ethiopia wajahaysaa. waa saas weeye. qolada ugu horreysay ka faa'iidaysanaysana waa kuwe. way adag tahay horta. waxaan hadda ka sheekeynaynay barnaamijkeena qorshaha Ethiopia u degan ee dhulkeena inay magaalooyin looga dhiso Ethiopian oo dhulka shidaalka Soomaalida laga fogeeyo oo magaalooyin laga dhiso. gubadka aan gubi doono, biciidka daaqi doona, sangaha macnaha subaga Soomaali sheekada Soomaaliyeed ma hayn. qorsha yaa kasoo hoos maray. wakaa Ethiopia mataqaanaa isbaaraa dhexda u taalla. ma soo guulaysanaysaa oo Ethiopia intay guulaysato oo Oromo la soo jabiyo oo Benishanguul iyo qoomiyadahan kale oo dhan lasoo baabiyo, Walayti iyo kulli, oo Tigreega laftooda xaggaas iyagana la jabiyo. Tigreegu la iskuma hadlayn karo maxaa yeelay waa dad Ethiopian ah, Abasiniyaanki bay ka mid yihiin. hadday doonaan berri bay Ethiopia la heshin karaan. berri bay moogtay. marka laakiin waxaan ka hadlaynaa dadka la gumaysto ee weliba kooshka ah, kushitiga ah. marka Oromo ma laga adkaan karaa oo Ethiopia ma ka adkaan kartaa? waa 40 milyan ee jidadka xidhay ee ciidamadoodii inay jabhadaha wada hubka guranaya. xaraan bay ka tahay. waxaan hadda ka hadlaynaa waxaa weeyaan waa waxa jira in la ogaado, dadkeenuna aware ka ahaadaan, inaad la socotaan. saas wey. marka arrimahaasaa jira. waxaan jeclahay inaa xogaha yimaada ee wixii cusub oo dhan inaan dadkeena la socodsiino waan jecelahay. halkana waxaan ka jeedinaynaa dadka isku mashquulsan. arrimo badan baa hadda maanta ka dhacay waddankii. qodobka runtii maanan ka hadlin, waan xaggan unbaan u boodnay wararkii Ethiopia. runtii waxa weeyaan waddankaas dowlad baa ka jirta, jigjiga ka dhisan. sharciga cid ka sarreysana ma jirto. xaqada dhabtaana waa taas. haddaad u hoggaansanayna sharciga dee waddankana dowlad baa ka jirta. marka waxa weeyaan nidaamka waa in dadku ilaaliyaan. dadka Soomaaliyeed kulley waxaan filayaa haddii aad qiimeyn weyda maanta waxaa ku saaran iyo xaaladaada berrina ma garan doontid. waxaa laga yaabaa adoo maanta iska ladona halkan degan, haddii ladnaanta aad xajin weyda buurkaaga dabgeliso inay mashaakil kugu noqoto.
marka arrimihii dhacay maanta waan cambaaraynaynaa ciidamada ammaanka iyo dhibaatadii dhacday. arrimahaas arriman ma aha runtii suurtagal ah. marka intii la isku yimaado maaragtay dowladduna inay waxa weeyaan ay sharcigu hadduu sarayn waayana wax soconaya male. waa nidaamka sharcigu inuu shaqeeyo wey. waa yahay marka telefoon ma kasoo garacaaw. marka waad mahadsantihiin daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan. guud ahaan marka halisaha dalkeena kusoo wajahan iyo maaragtay qorshaha Ethiopia ay wadato, ilaahay baa naga qabtay. ilaahow baan maqal cadowgeena cadow u bixi. Ethiopia sideeda banaanba waxa weeyaan nasteexi nooma ah. ma waxaad aragteen waddan dhan oo hal waddo oo laami ah oo weliba raf ah, hal waddo keliya. waxa weeye dulmiga Ethiopia ay dadkeena ku haysa mid caadi ma aha, laakiin maanta hoosteeday ka heshay. ilaahay baa koonkan khalqaday addoommadiisa oo dhan. dhulkaana ilaahay isaga ummadda ku beeray. marka addoommo kale inay adiga dadku addoonsadaan wax macquula maaha. marka dad afrikaan oo kale inay dalkeena gumaystaan wax dhici kara maaha. ummadda sideedaba tana caawa iga qora maartay, haddii dadkeennu israaco oo hal meela isu raaco, hal meela Ethiopia inama gumaysan karto. qaybi oo xukun waxa la yidhaha gumaysiga. sideedabana nidaamkan waa nidaam ay kasoo dheehatay Ethiopia gumaysiyaashii hore. inay adiga ku kala qaybiso mooyeene Ethiopia inama gumaysan karteenba. waa xaqiiqo dhaba. maanta dadkan hadda isu wada raaco, soomaalida weyn oo dhan iska da intaa hadda regionka waddanka ay gumaysanayaan keliya habartan waalane meesha ku jirtaa maxay ahayd? anaga bax. waa yahay soomaali galbeedda ku haysa. soomaali galbeed xaggee la yidhaah? horad Ethiopia haystee gaale xore. waa yahay marka aad baad mahadsantihiin. waxaana jecelahay insha allah telefoona badan baa soo gelgelaya. arrimihii horta waa Ethiopia ka socday. fari kama qodna. toddobaadkan soo socda ayay Ethiopia ugu shidan tahay. doorashadii Tigreega dhacaysa. doorashadii Tigreega ayaa dhacaysa. anigu waxaan la yaabanahay dadka Soomaali galbeed ku waashay. war meesha dhiig baa yaalla. Ethiopia haysta oo 100 milyana. rag baa xiniyihiisa duldhigay. ninka markaa afka waxa laga sheega looma baahnaa intaad tagto ka sheego oo difaac. laakiin adoo magaalo kale oo jooga dal kale oo nabada ama geeska Afrika meel ka mid ah, Soomaali galbeed inaad meelaha kusoo qorqorto. waxaa la rabaa meesha rag baa isku haya. baadi ninkay ka maqan tahay baa daydaya baa layidhi. magac Soomaali dadkao dhan baa Soomaaliya. dadkao dhan ayaa Soomaaliya. afka looma baahane waxaa loo baahan yahay wadno iyo lexejeclaale ninay baadi ka maqan tahay. haddii aad afka unka Soomaali tahay oo aad cuqdadan kugu jirto magac intaad maqashay, magacaas waa saasaa la yidhaah, aday ku dhibaysaa. waxaana iswaraysanaynaa maalinka Ethiopia kala tagto yaynu iswaraysan inaad hadasheen kale kaas noocaas oo kala ahay hadal maalinkaas uu dhamaadayba. ilaahay oo Ethiopia berrito may kala tagto hadal uu dhamaaday. dadka Soomaaliyeed way isgaranayaan. nin Soomaaliya in la dulmo anigu ma qababa. Soomaaligana maba aaminsani inuu Soomaali kale meel kale ka leeyahay. laakiin ka sida xun u socda
ama dad kala qaybinaya ama kule meesha magacaasaya neecdaas neec looma baahnaba haddaad dalka wax ku leedahay inakeen beri baan tegaynaa waa saas wey marka waad mahadsantihiin daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan intaasaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaha xoogaha inagu soo kordha inaan idila socodsiin doono haddii ilaaha awoodda la idmo marka ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo dadka sida wuxuugu sheegaya ama meesha waa public marka waxaan jeclaan lahayn insha allah inay dadkaas laga daayaan han waxaa qaba qadiyadan jallaafooyin badan baa loo soo dhigay waaba 2010 halkan aan joognay dad waxaa jiri jiray badan oo la odhan jiray dabaqoodhi markaa nin odaya ayaa wuxuu yidhi haddii dadkan dibadda jooga oo dhan ay etoobiya u xaroodaan halgankani wuu soconayaa halganka ilaahay baa wata anugu waddankii baan ka imid marnawed baan ka imid waa la soo arkay 6 gobol baan maray dhulkaas dadkana waa soo arkay si uu degan yahayna waan arkay waxaan hubaa dadka inay hadafkooda gaadhayaan gabadha yara adhiga la joogta marka calanka gaadhiga noo saana aragto adhiga way kasoo ordaysaa adeer sug waxaa weeyaan caagad yar bale caanaan idin soo lisayaa bay leedahay marka dadkii waddanka lahaa adeer waddankiibuu joogaa waddankiisuu difaacanayaa laakiin waxaan ka hadlaynaa waxaa weeyaan dadka hormuudka u noqon lahaa ee qurbaha joogay inay dib isugu laabteen baa nasiib dara tusaalena waan usoo qaatayoo dadkan dibadda jooga o dhan hadday xaroodaan halganka wuu soconaya markaasuubaa caafimaad helaya aniga shaki igama jiro waddanka inu xoroobayo halkaa ma fadhiya caaw habeen jumcaa soo gelaysa shaki iguma jiro maxaa yeelay xoogaal baan ka ahay etoobiya aniga shaki weligay ima gelin waxaan islahaa ilaahay ou na gaadhsii ilaahu nagu sin baan lahayn laakiin ani maanta shaki igama jiro in etoobiya wax la yidhaha oo sii wada joogaysaa ma jirto never ma jirayso maxaa yeelay waan aragnaa imise nation war oroma ma ogola etoobiya walayta ma ogola sidaama ma ogola tigraagii baa diidan canfari ma ogola etoobiyada la isu keenaya waatay wada joogaysa marka yaa isku qasbi kara etoobiya isku hayn kara xadhig yaa ku xidhi kara etoobiya kuwa soomaalida ee jecel haw tagaan bal ha isku qabqabtaan xanjiya sufi waxay isku gudbaanba etoobiya kale ma jirto waxaan may dhinacaas maarata marka allaha nagu simo aamiin waxaan u baahannahay dadkeenu keliya dad caafimaad qaba oo waxa ka maqan og iyo godobta laga galay daan u baahannahay wax kale ma jiraan intaas yaan idinkaga tegayaa waanad mahadsantihiin daawadayaasha qadarinta mudan meel kastoo joogtaan wixii xoga ee nagu soo kordhana aad baad ula socon doontaan haddii la yidhaah fariimaha caafimaadka qabana badiya dadka hala gaadhsiiyo innagoo keligeena mala sanaawi markuu hadda etoobiya haystay keligeen oo wiilkii yaree lagu arko jamhuuriyaddii xorta ahayd wiilkii yaree loo garto inuu waddankaa ka yimid ama lahjadiisa lasoo qaban jiray kastaa loo geen jiray etoobiya waaku wax kasta oo qadiyadaas hagardaamaha loo geystay way ka gudubtay waa samirkii dulqaadka qadiyadan inay xaq tahay waxaad ku garanaysaa meeshay maanta marayso wixii marka etoobiya la odhan jiray ee dalkeena gumaysanayay dee filimka socda maad iska daawataan filim baa socda filim musalsala oo maaragtay xiisa badan baa socda filimkaa iska daawada xaqiiqo wey filimkaa hala daawado ninkii etoobiya jecel haddaad soomaali tahay kolay etoobiya wax jecel oo kale ma arag anugu hadda labaan meesha ka xidhay hadda ku jirtay tu islaana iyo mid kale oo weliba calan buu watay meelahaas dariskeenna etoobiyana
dayla buu yidhi waynay garan waynay gaadi buu yidhi cigaal shidan amin galaba oo roob da-ay oo guriga docdiisa dab yar ku shidan yahay baa nayl baa ku xidhnayd guriga uu soo galay markuu soo galay baa nayshii baa yar kadlaysay boodbooday marka nin xigmo badan buu ahaa dana reer cigaal waa reer laandheeraha xagga n f d bay degan yihiin ugaa dhaweyd baa igu horreysay nin xigmo badan ninkii markaa soomaalida ugu horreeyey waa xagga maaragtay garashada iyo caqliga waxaana uu ka horreeyey reer magaal buu ahaaba hadday lahayd idin buu yidhi ma garatay waaya nayshii markay kadlaysay boodbooday hadayna inay ha isku keendila buu yidhi mogta hadda waxaan leenahay kuwa etoobiya u kadlaynaya ee arxanka moodaya nayshaa yar qoorta xadhig kaga xidhan yahay kama duwana kuwa soomaalida waa saas wey marka nafta khayr ha loo sheego waanad mahadsantihiin waktigaa nagu socda fikirka horaan u sheegi jiray waan ku celin caawa anu waxaan aaminsanahay fikir baan aaminsanahay intaad fikir aaminsan tahay qadiyadaada ana lagama adkaanin hal nina haddaad tahay keliga ood hawdkaa gasho yah lagama adkaanin waad garta soo maha marka maamaadii waan ku celinayaa ingiriiska ahayd fikirka iyo xoogga idinkaan idin weydiinayaa caawa horeyna waan idinku sheegay intaana ka bixin inaad ka jawaabtaan midkoodee xoog badan fikirka midkoodee xoog badan fikirka iyo xoogga idinkaan idin weydiinayaa labadaas bal isu geeya nin xoog badan oo powerfula iyo mid tabar yar oo laakiin maskaxaya midkoodee guulaysanaya waa tahay okay fikirka waa yahay waayahay waad mahadsantihiin aada iyo aad waa kulley saas weeye dhammaantiin axmed kacaan baan salaamaya saaxiibkay fikirka okay waa run waayahay waad mahadsantihiin dhammaantiin waad garateen intaadu 99% aada iyo aad waa tusaale fiican wey anu markaan fikirkaa aaminsanaa ee etoobiya 100 milyana lalahaa ee gabre iyo meel walba haysteen laga soo qabanayay fikirkaasaan aaminsanaa waana ku guulaystay way jabtay hadda marka hadday iga dhaadhici lahayd war soomaaliya waa lagaa soo qabtay dalkaagiya etoobiyana waa tan xooga badan kaalmadii caalamkana way helaysaa iska daa maya waan diiday fikirkaygii baan ku socday anigu waxaan aaminsanaa inaan ka adkaa etoobiya tii un baana hadda hirgashay nabadgelya marka aad baad mahadsantihiin dada mashaaki ahayd